مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم كاني أربعة وجوتذا أها إلهي فدقيسا إيو إلهي سبحانه وتعالى نمعاد ونسيمات وحنا لجو قاري وين القاري شيخ عبد القادر وكندا النووي يمد marka maanta waxaan qorsheynay haduu ilaahay yiraahdo suuratul faatiha asraarteeda oo kooban sheekha aayadu uu akhrinayaa anna aayadan af Soomaali u sheegaya kadib markaasi suuradaasi asraarteeda iyo fadaa'isheeda oo kooban ayaan sheegaynaa haduu ilaahay yiraahdo sheekhana waa khatimi doonaa anna waa ku hormari doonaa aayad marka sheekh waxaan ka codsanahay hal aayad inuu akhriyo halkaas aayadan fasiraya insha Allah sheekh alqaari sheekh Abdul Qaadir aayada koowaad waxaan noogu bilowdaa bisinka saan u fahamno macaanida bismillaahir rahmaanir rahiim fadal bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahi waa magaca ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo wax walba lagu bilowdo arrahmaan ونحريس جود أو إلهي سبحانه وتعالى وبحشه أدونك أنت لجوجو قال إيه مسلم وسياه أدونك روح وقول نحريستي أكسجين كتصال أهان لما كلا سوعين ضدك أكسجين كقاضنا وقال إيه مسلم أحان لك لا سوعين عقلك ونحريس جود واي وحي نحريس جود أو وحالو لجيدا قال إيه مسلم وكفى إذي سنايا إلها أقل عضي لكن الرحيم ونحريس قاله naxariistaasi waxay gaar ku tahay loola jeedaa mu'miniinta maalinta yawm al-qiyaama waxayna gaar ugu noqotay iyagu ilaahay ugu naxariisanaya naxariistaasi gaarka ah inuu jannadiisa geeyo micnaheedu waxa waaye dad waxaa jira naxariista gaar aan heli doonin waa gaalada waa mushrikiinta waa munaafiqiinta waa caasiyaasha naxariistaas gaarka ma helayaan marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalintaasi waxaan weydiisanaynaa naxariista gaarka ah inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ونسو جارسيو آيادان بسم الله الرحمن الرحيم علماء وحي راهدان وحي كمتهي سورة الفاتحة خلاف وجرى لكن فافاهين تسمى قلينو لكن بسم الله الرحمن الرحيم حديثة صاعر والنبي قويل عليه الصلاة والسلام وحوال بو وناكسن وأتسمين إيسان بسم الله الرحمن الرحيم كبلو محون قنايا وحبرك له بركو يا لنا يا محون قنايا إلهي ونوبضنايا سدح محون قنايا إلهي وحو وافجنايا قفك بسم الله الرحمن الرحيم دهي وحو دهي أو خير كأ سدو إلهي أربي إنه استعماله وافجنايا بسم الله الرحمن الرحيم توفيق دو قفك إلهي وافجنايا هداية دو إلهي قفك واجب وافجنايا بسم الله الرحمن الرحيم هداد لحظة وحي آد أولها مثلا هدي عنتاء هايين cuntadaasi haday wax ku dhibi lahaa ay ku jiray sida sun oo kale ilaahay subxaanahu wa ta'ala suntaasi ilaahay uu ka saaraya bismillaahir rahmaanir rahiim darteeda gabar waxa jirtay oo hooyadeed bismillaahir rahmaanir rahiim aan dhihin oo raashin sun ku jiray cuntay oo halkaas ku dhacday oo dhimatay intay cuntay hooyada in ka badan waxa cuntay gabadheeda laakiin waxay ku bilaabatay bismillaahir rahmaanir rahiim dhakhtarka marka loo cararay gabadhi jirkeedu wax sunna waa laga waayay taas waa qisa kamid ah bismillaahir rahmaanir rahiim sheekh Abdul Qaadir falyatafadal aayada ku xigto alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa kalmad aad weyn salaada waxaa la amray ugu yaraan 33 jeer inaan dhahno alhamdulillah haddaad wax ku farax geliyo aad aragto ama aad hesho alxamdulillah inaad dhahdo micnaheedu waxa waaye alxamdu mahad lilaahi ilaahay keliya u sugnaatay wax walbo ilaahay uu isiiyey oo wanaag ah oo nicmo ah oo caafimaadka ka mid ah indhaha wax ku arkaysid sanka wax ku urinaysid carabka wax macna ku hadlaysid wax ku cunaysid ku dhimanaysid dhagaha aad wax ku maqlaysid waxaasoo dhan marka soo ku xiri maalintii qofka muslimka inuu dhaho waa ugu yaraan 150 jeer iyo ka badan oo ah alxamdulillah marka alxamdulillah micnaheedu waxa weeye ilaah subxaanahu wa ta'ala kaliya mahad u sugnaatay afwan rabbil alamin caalamka xali ruux ilaahay ka soo haray allah rabbiga u ah khaaliq u ah allah abuurtay
adigoo lagu abuuray makhluuqaadkoo dhan waxa ilaahay ka soo haroo dhan ilaaha abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala cafwan waa kan unkay waayo rabbi waxa waaye barbaariyo waayo waxa la abuurayo hoosta ilaaha ka soo bilaabay ilaa ay koreen hadduu geed ahaa geed adag miro dhal noqon kara noqday haddaad adiga ahayd aniga aan ahaa wax yaroo oo aan waxba ahayn waxba iska celin karin ilaahay subxana wataala uu ka soo bilaabaya adoon jirin hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura adoon jirin ayaa ilaahay subxaana wa tacala uu ku keenay alxamdulilah ad leedahay marka waa ilaahay wuu ku doortay wuxuu ku dhahay adduunkan ku keensanaya waa doorasho waay laftigeeda kan gaalkan oo weli oo maaragtay adduunka joogo ilaahay diidan laftigiisa waa la keensaday marka ilaahay inuu raaraadiye ahayd caqligu ilaahay siiye alxamdulilah inaad dhahdo waay marka alxamdulilah wax weyn waay culammadu waxay ku soo keebeen alxamdulilah afaraa laga faa'iidaysanaya dheheen afar macaani alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacala isagaa isku mahadinayo wuxuu leey alxamdu mahaddan lilaahi ilaahay u sugnaatay oo aniga ah ilahay wuxuu leey anaa wax walba bixiya horta waa taas waa kow ta labaad alxamdulilah dadka markay ilaahay ku dhahaan ilaahu waad mahadsan tahay alxamdulilah dadkay ka imaanaysaa marka waa ahlul iimaanka waay kuwa iimaanka ilaahay siiyaa waxay xusuusanayaan nicmada ilaahay markaas alxamdulilah markii ay dhahaan saddexay helayaan kow waa in tacudu marka hore nicmo ilaahay ma koobi kartid laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay lain shakartum la asiidannakum haddaad dhahdo alxamdulilah wixii aa haysatuu ilaahay uu kuu badinayaa hadday ahayd haddii oo hal ilmo ama laba aa haysato ilahay oo kuu badinaya waxaa kaloo lagu fasiray alxamdulilah saddex faa'iidaan dhahay faa'idada koowaad waxa waaye wix ilaahay inuu kuu badiyo laba ilaahay inuu kuu barakeeyo saddex ilaahay inuu kuu xifdiyo culummadana afaray ku daraan tafsiirkaasi oo alxamdulilah waxay dhahaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu badiyey oo uu kuu barakeeyey oo uu kugu ilaaliyey ilaahay subxana wa tacala tawfiiqdeedu ku waafajinaya marka afarta waa maxay marka ilaahay oo isku mahadinaya naftiisa mu'miniinta oo ilaahay ku mahadinayaan laba iyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ula jeedaa mu'miniinta dhexdooda ay isku mahadinayaan man lam yashkur innaas lam yashkur illah dadka haddaadan ku mahadin ilaahay subxana wa tacala ma xusuusanaysa qofkii wanaag kuu gala waxaad leedahay jazaaka allahu khayran islaamkeena waad mahadsan tahay ilaah ha kaa abaalmariyo marka waxaad leedahay shukran ayaad leedahay marka bini aadamka dhexdiisa waa tan saddexaad dhexdiisa isku mahad celinaya midda afaraad waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala markuu ku mahadinayo mu'miniinta maalinta qiyaamaha oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dhahayo sacyigii iyo khayrkii aad samayseen waxaad tihiin kuwa ku mahadsan macnaha ilaahay subxaana wa tacaala sacyikum mashkuura marka mu'miniinta sacyigooda iyo khayrkooda ilaaha ku mahad celinaya waa afartaas mahad waaye aayadda saddexaad شيخنا الفاضل الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين علماء قالوا هالكاس كحران رب العالمين إلها مهضله أو عالم كأولا ربي وأها الرحمن الرحيم أو وحي إليه المركاسي الله سي ربي أيها من نحريس جود بحية من نحريس خاص بحية وكسو هذا اللي آياتك وحكت شيخ مالك يوم الدين بقرك مالنتا قيامة مالك أما عليه لها يوم الدين هل كان علماء حيرنهان إلهي سبحانه وتعالى مالنتا سيب بقر لماذا وإلهي أوليه ويموقانيسا وأتنلي من الملك اليوم إلهي ودها يا له ملكي جمانت لله الواحد القهار إلهي كليا أي خاص وأهات هذا ما أنت ضد بدنا بقرة شيكتو ضد بدنا أود شيكتو إلهي ما أنت سجع بقرة مالك يوم الدين علماء وحدهن إلهي سبحانه وتعالى بقر نمدي سمر كي موقته يأوديسي وحا موقنا يضعف إنسان كمال انتاسي وأنبياء كجران قف والبوح ليه سلم إله إبد بادي dadka maalinta qiyamarka lasoo wada saaro waxaa layidhi waxay taagnaanayaan 50,000 oo sannadood waa la daalayaa markaasaa waxaa bilaamayso dadka inay raadiyaan meel qaarkood maahe kulligood waxay leeyihin ilaahu xisaabta soo dedeji ilaaha
waxaa la weydiisanaya xisaabta inuu soo dedejiyo markaasaa waxaa la aadayaa nebi kasto marka waxay kasoo bilaabeen abuna aadam wuxuu leeyahay sallim riwaayad kale wuxuu leeyahay nebi aadam aniga ilaahay subxaana wa tacaala maraan dembi ka galay marka maadaama ilaahay mar dembiga aan ka galay waa ka xishoona inaan hortago oo wax aan weydiisto marka ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay boqorkii malikina waa loo akhriyaa kolay sheekha qiraa'ada wuu ku celin doonaa maaliki waa boqor kii lahaa maalintaas adduuniya aakhirib ilaahay isagaa leh laakiin maalintaas lahaanshihiisa muuqda cid kaloo sheegan karta ma laha waxaan kusoo gabagabaynayaa sirta meeshaas aayaddaas culummada waxay dhahaan macaanida kale oo ku qarsoon waxa waaye boqornimada ilaahay lasoo xusuusto oo boqorkaasi laisku dhiibo adduunka inta la joogo si aakhira ilaahay uu ku badbaadiyo marka maalintaasi oo dadka o dhan sallim ay dhahayaan boqorka ogolaanayo in xukunka uu yimaado waa allah subxaana wa tacaala nebigay dadka u imaanayan ugu dambayntii markay nebi aadanay u tagaan nebi nuux markay u tagaan ambiyadoo dhan ay u tagaayaan ilaa ciise ay u tagaayaan markii nebi kasta uu dhaho arrintan ilaahay lama hadli karo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u imaanayan wuxuu leeyahay ana laha anaa leh tan shafaacadan marka waa tan axaadiista ay tilmaantay maqaaman maxmuudan waa meeshaas waay meesha la mahdin doono rasuulku lagu mahdin doono oo dadko dhan ay dhihi doonaan waad mahadsan tahay waa xisaabta kaliya la fududeeyey ma aha weli janno iyo cadaab iyo weli laba kala aadan xisaabtaasay dadka raadinayaan sababta waa la daalay daalkaasa dad laakiin ayaa waxay hoos fadhiyaan harka ilaahay subxaana wa tacaala yowm laa dilla ilaa dilla maalin dil macnaa har aan jirin ilaa dilla harkiisa maahayn halkaas yaa fadhiisanaya 7 yaa ka mid ah alimaam alcaadil madaxweynaha oo dadka u xaqsoora waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ilaahay dartiisa isku jeclaada waxaa ka mid ah qofka sadaqada qariyay waxaa ka mid ah qof ilaahay xusay keligiis isagoo ah ilin ka timid 7 wiil dhallinyaraa ka mid ah oo wadamadan oo kale ku nool oo ka leexday fidnada iyo macaasida marka maalintaasi awoodeeday aayaddaas tilmaamaysaa fadal sheekh إياك نعبد وإياك نستعين culamada markay ka hadlayaan faatixada waxay soo qaataan xadiis tilmaamayo salaada in la qeybiyey oo maxaan xoolo jeeda faatixada in la qeybiyey qaybta hore waa ammaan ilaahay subxaana wa tacaala la ammaanayo marka qaybtan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa qaybta ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa lagu muujinayaa in dhammaanteena aan addoon asaga keliya aan u nahay waxaan leenahay iyaaka adiga keliya nacbudu aan ku caabudaynaa wa iyaaka adiga keliya nastaciinu aan ku kaalmo weydiisanaynaa halkan marka culummadu waxay dhaheen cibaadada macnaheeda waxa waaye wax walba oo aad samaynaysid oo aad ku hadlaysid oo dhan inaad ilaahay ku raali geliso uu noqdo wax ilaahay u raali ka yahay haddaad wax u baahato oo baahi ilaahay subxaana wa tacaala wa idaa sa'alta fas'al illaah saasuu dhahay nabiga calayh salaam haddaad wax weydiisanaysid ilaahay wax weydiiso halkan marka wa iyaaka nastaciin micnaheedu waxa waaye ilaahan kaalmo weydiisanaya wax walbo aan raba inaan sameeyo keligayga ma samayn karo ilaahan waxaan leeyahay ilaahu ii kaalmee aayadda ku xigto اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم intan waxa waaye tii addoonka uu lahaa addoonka wuxuu weydiisanayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay addoonka markuu salaada ku jiro xulaa ihdina ilaahu nagu hanuune alsiraata wadadii almustaqiim ee toosneed alislaam ayaa lagu fasiray waddo kaloo toosan ma lahan adduunka nidaam toosan ma rabtaa islaamka raac mabda' toosan ma rabtaa islaamka raac diin toosan ma rabtaa islaamka raac akhlaaq toosan ma rabtaa islaamka raac laakiin islaamkaasa waxaad u baahan tahay ilaahay inaad weydiisato annaga ilaahay subxaana wa tacaala inuu islaamna siiyey inaan dhahno alxamdu lilah alxamdu lilahi aladii hadaana lihada ilaaha mahad leh diintan ilaahay nagu hanuuniyey
marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa hanuun sax ah hanuun sax ah almustaqiim wadadii toosneed hanuunkii saxda ahaa marka hanuunkan saxa ah dad naga horeeyo ilaahay waafajiyey dadkaasuu ku sheegaa marka aayad soo socoto صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين wadadii alla caddeynaysay wax walba ay u caddaato kuwii wadadoodii waay kuwee marka ancamta calayhim aada u nicmaysay ama aada nicmaysay dushooda ancamta aada nicmaysay dushooda calayhim dushooda kuwee kuwaas marka waxaa la yidhi waa ambiyada ilaahay subxana wa taala ilaahan waxaan leenahay ilaahu wadada islaamka nagu hanuuni wadadaasoo aad ku hanuunisay aada ugu nicmaysay ambiyadii siraat aladiina ancamta calayhim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إلهي وحولي أنا هم كوي لو عراضي ويهود وحي خلافين أنبيادي أو أمرت إلهي وهو عراضي ولا الضالين أنا هم كوي باديوبي وحاب باديوبي أو رمي ونصارى النبي عيسى ويمد عليه الصلاة والسلام وحو أتلمامي مركاسي waduu u tilmaamay oo ah alislaam way dhumeen waddo kale qaata waddada alislaamka wuxuu dhahay hal ilaaha jiro waxay dhahay maya ilaahay keligiisa maahan ciise waa ilaah waa wiilkiisi haddana wuxuu dhahay ilaahay wiil ma lahan ama caruur ma lahan waxay dhahan ilaahay wiil wuu leeyahay caruur wuu leeyahay ciise wiilka ilaahay ah marka waa dhumeen waddo kuwa dhumayna aan ahayn waddo kuwa loo carooda aan ahayn hala waddaa soo hartay marka waa alislaam waddadaasaan ilaahay weydiisanayna marka suuraddan suuratu alfaatixa waxaa loo soo celceliyaa umulkitaab waxay leedahay magacyo aad u fara badan waxaa ka mid ah alxamdu lilah ilaa 8 ka sheegaya waxaa ka mid ah umulkitaab hooyadii kitaabka waxaa ka mid ah ashaafiya dawo waaye alkaafiya waa xifdis haddaad akhrisato ilaahay shar oo dhan iyo xumaan uu kaa xifdinaya alruqya waa la isku tufaa suuraddan haddaa isku tufto waa caafimaadaysaa xaajata qiisa cajiib badan anaha maamo la geeyey isbitaal oo markii xanuun ku dhacay isbitaal loola cararay muqma calay macnaa uqmiyad macnaa way suuxday macnaa koomay wuxuu ku jirtay maalmo badan dhakhtarkii wuxuu saaray jirkeedoo dhan mashiin marka maskaxdeeda ayaa wuxuu ka helay xanuun wuxuu dhahay hooyadiina ma ku soo laaban doonto siday ahaan jirtay qof ayaa timid marka oo macnaha gabar eedinaya u heedaan u malaynayaa ayaa dibadda ka timid macnaa ahlu qur'aan ahayd mar alle markay timid toos isbitaalkay u timid markaasi way ag fariisatay markay ag fariisatay waxay bilowday inay akhriso faatixada way ku celcelisay culammadu waxay dhahaan 41 jeer faatixada haddaa isku akhristo ama isku tufto ama qof aad ku tufto ilaahay caafimaad uu siinaya markay dhamaysay faatixada ilaa 41 markaasi kadib maamadii indhahay furtay dhakhtarkii loo wacay wuu soo cararay wuxuu leeyahay mashiinkan kula cararaabaya waa fiirinayaa wax isbeddel ku dhacay mashiinku kula cararay dhakhtarkii oo indhihiisa nooc kale ah oo wejigiisa farxad ka muuqata ayaa wuxuu yiri waxbaa dhacay waxay doonta ha ahaato ani ma ogima shay wax u dhaceen waa sirta suuraddan ay leedahay oo maxaa dhacay maamadii xanuunkii sawirkii hore xanuunka idii tusiyey iyo sawir dambe uu keenay wuxuu dhahay fiiriya wax jirkeeda ku haray ama wax ka muuqdo calaamad xanuun oo dhan ma jirto waa mucjizada waa arrintan mid la mid ah waxay dhacday waqtigii nabiga calayhi salaam xadiiska abaa saciid al-khudri iyagoo marti ku noqday xaafad ama meel iyagoo safar ahaa waa ninkii meesha madaxda ka ahaa waa tii markaasi mas uu cunay suntiisii markii jirkiisii uu ku faafay oo tacbaan uu noqday wixii dawo iyo dhakhtar ay lahaayeen waa daweyn waayeen markii dambe waxay martada
banaanka joogto aan dawo ka raadino. abaa saciid wuxuu yidhi waa noo yimaadeen markaasaa waxaan dhahnay noo geeya waa tufaynaa ruqya sameyn faatixay ku akhriyeen weligoodna ma samaynin markaasaa u horeysay ninkii markii faatixada la dhameeyey bay ku tufeen meeshii bahalkuu ka qaniinay ay ku tufeen xanuunkiina wuu dahay markaas wuxuu soo siiyey 30 ari wuxuu soo siiyey waa meesha la dhahayo qur'aanka tufmada lacag waa lagu qaadan karaa way soo qaateen xitaa asxaabta wax cusub markay arkaan ama uu dhaco kuma degdegi jirin inay wixii la falgalaan ama ay macnaha ay iska qaataan nabiga ugu tagay calayhi salaam waxaan weligeen sameynay faatixaan nin ku akhrinay ujuuraan soo qaadanay macnaha waxbaan kala bedelanay anagana faatixadiyaan ku akhrinay isagana 30 ariyuna siiyey marka xalaal ma noqonaysaa inaan kala qaybsano aan cunno nabiga calayhi salaam ma dhihin waa xalaale wax ka sii weyn u dhahay oo xalaalnimada sii adkeynayso wuxuu yiri marka kala qaybsanaysaan anna qaybta wax laga sii yiri alayhi salaatu wasalaam halkan marka suuratul faatiha waa ar-ruqya magaceeda kale waxa kamid ah suurada ay leedahay as-sab' min al-mathani todobadii soo noqonaysay salaad kasta waa la akhrinayaa waa suurada ugu akhrin badan waay suuradan waxa la yiraahdaa si gooni u soo degtay nabiga calayhi salaam oo jibriil la joogo dhawaaq cirka ka yeeray nabiga calayhi salaam maxaa way dhawaaqaas markaas wuxuu rasuulka calayhi salaam albaab ayaa la furay oo samada ku yaala hadda ka hor weliis lama furin dib damana looma furi doono albaabkaasi malaga ka soo degay wuxuu wataa 2 nuur wataa hal nuur waa suuratul faatiha nuurka kalena waxa way aamana rasuul labada aayad ugu dambeysay suuratul baqara oo hadiyadna rasuulka loo siiyay riwaayadaha qaarkooda markii la dhilmiyay calayhi salaatu wasalaam marka suuradan hadiyaday ku timid oo maaragtay oo nabiga calayhi salaam saxaabi gooni Ubay ibn Ka'b la yiraahdana hadiyad ahaan u siiyay anagoo dhanba maalin rasuulka calayhi salaam Ubay oo salaad ku jiro yaa Ubay ibn Ka'b marka ma ba ka soo bixin salaadu iska dhamaystay markaas rasuulku wuxuu yiri calayhi salaam waa ku yeeray waa qayliyay magacaagan u qayliyay maxay ugu iimaan weysay salaada sunna ah heereen culimada salaad sunna ah adoo ku jira hadii waalid ku yeero ama macallin qur'aan haduu ku yeero meesha laga soo qaatay waxa way inaad ka soo baxda u timaado waa banaantahay waajibkaadan ka soo bixin hooyo hadii sun kugu yeerato xadiis ku soo aroortay anbiyada ama culimada booska anbiyada taagan markaas wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala soo madin استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم marka hadii oo ilaahay subhanahu wa ta'ala yeero quraanka ilaaha noo yeeray ama rasuulka duu idin yeero waa sunnadiisa waxaad ku noolaanaysaa dadka dhan u jeed dadka adduunka gaalada oo dhan waa meeyt waxa nool waa adiga hadaad aaminsan tahay mu'minka saas ku meesnaado waxa ku noolaysiinaya jira laakiin waxa ku noolaysiinaya waa quraanka iyo sunnada nabiga calayhi salaam suuradan nin sheekh caalim wuxuu dhahay 41 jeer hadaad fariisato adoo weysa qabo qiblada u jeestay oo meesha ku xanuunaysa aad ku tufto ar-ruqya waa suurad aad u fadli badan waaye sheekh Abdulqaadir ayaa sagana taaliqinayo wala tafadal mashkuuran barnaamijka markaas qur'aan ku soo gabagabeeyna insha Allah bismillahir rahmanir rahim sheekh Xasan uu dhameeyay suuratul faatiha يعني وانا ما يسترنتها والله ما يسترتي نعم مركا horta waa fadli weyn maanta inaad halka inta isku timaadaan dadka inta la dhageysataan khayrka Allah subhanahu wa ta'ala hanuunka Allah subhanahu wa ta'ala marka waxaan idinku duceynayaa inuu anagu dhanba duceysayna inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmahan inuu hanuuniyo amiin anagana hanuuniyo aan noqono dadka raadsada hanuunka Allah subhanahu wa ta'ala habeenii maalin meel kasto laga helo u raadsado oo noqdo kuwa تربية الموضة أيانا نفتح تربية نفتح بنادم نفتيس تربية وبهانتها بنادم نفتيسه قفك مارتي داعية قفك دين تيقان قفك القرآن كيقان ما لين تذكروا باهي مكة سوي ما شضن خير بدن بيلاد هاي هلا بضيو ضدك كلا عن مارتي كور قبلها لوجد بيو دعووي قول كان ذات سوق لسان لبو كال يلا بي صدح يفر وحوي وعطية أضوها الشيء ويان لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها أدي قف إلهي كوهنولي وحي كف خير بدن تكسر رئيسا الدنيا دو نمبك قيم بدن تاي أو خير من حمر النعم مركا ضدك الله وضع الشيء
meel kastoo khayr lagu sheegay dadka hala geeyo hadda beryahan waxa weeyaan technology-gan maaragtay meesha aad fadhida aad ku dhegeysanaysid cilmiga aad ku dhegeysanaysid waa fadli aad u weyn waa yacni si fiican haddii loo isticmaalo waa yacni wuxuu noqdaa maaragtay maxaan ku ihahdaa guul iyo faa'iido iyuu noqdaa marka ilaahay subxana watacaala ha idin xafido ilmiina allah xafido baaraka allah fiika sheikhana alfaadil haddaa dhameeyey marka anugu tacliiq وما هي فرض ذاك الله فيك يدخل أنا النظر أن كل راح يصنع عد كذا نعمة ومعانك بدن إلهي كسيي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. لما أنتم مع سنتين walaalaha ummahatul khayr waxaan halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena insha allah macaani wa asraar suurat alfaatixa. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.